dhawaan bay ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay xayiraad saartay diyaaradaha Fly Dubai iyo Air Arabia. Telefishinka bulshada oo dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama wax ka weydiiyay xayiraadda ay ku soo rogtay xukuumaddu diyaaradahaasi oo aragtiyo kala duwan ka bixiyay ayaa waxay yiraahdeen Bismillahir Rahmaanir Rahiim magacaygu Yuusuf Cabdiraxmaan Ibraahim ku nool dhalinta gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorama. marka hore waxaan u mahadnaqayaa TV-ga bulsho oo fursadan dahabiga oo raay ururinta kaga sameeyo dulmaadidii labada shirkadood ee Fly Dubai iyo Air Arabia oo dalka laga joojiyay muddo taas oo beel gaara ka cabanayso oo Jamhuuriyadda Soomaaliland degan madaxweynuhuna si gaar ah u baltilmaameysay madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad buu lagu celceliyay inuu dulmaadiyada Air Arabia iyo Fly Dubai hakinta ka qaado ma hadda xisbiga kulmiye ka cararay dad golaha dhexaad ka saartayna ma madaxweyne mar saddexaad mar afraad waxaan ku leenahay dalka dhinacyada ka andaraabayso iyo diyaaraduhu isku ma jiraan ugu horeyn halkan waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aan uga sheegayaa labada diyaaradood ee uu hakadka galiyay dhawaan inuu hakadka ka qaado mudane madaxweyne muxaafid iyo mucaarad buu xad u tahay madaxweynihii dalka marka waxaan oran lahaa anu shalay madaarku waa camirnaa maantana waxaan uga baahanahay Jamhuuriyadda Soomaaliland inay Dubai sidoo uu camir falaydada Dubai ay u camiran tahay madaarka Dubai sidaas la mid ah inuu camirnaado ka sii socdo waa nasiib xumo aad u weyn Jamhuuriyadda Soomaaliland marba marka ka sii dambayso dib iyo hoos u sii dhacdo mudane madaxweyne waxaan leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland waad ogtahay mucaarad iyo muxaafid qof kastaba maanta waa cabanaya waxaan leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu isbedel sameeyo degdega airportka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu weyn ee Cidaal Internationalna waxaan u baahanahay inuu noqdo airportada caalamka Afrika Yurub inuu noqdo airport absamiyo u shaqeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo Fly Dubai iyo Air Arabia xayiray waxaan leenahay xayiraadda ka qaad diyaaradahaasi waxay ku soo kordhinayeen dalka ganacsi furfuran oo loo raacayay wixii dalku u baahan yahay ma aha in la macaarado businessyada yaryar ee soo koraya waayo kuwa kale ayaa ku soo dhiiranaya inay airportada kale burco airportka Boorama oo isna xidhan in ay ka furtaan dhawaan Air Djibouti oo kale kuwii ku dhiiran lahaaba dib u noqonaya hadii la joojiyay Fly Dubai iyo Air Arabia marka businessku kuma jiro mucaaradka in la soo kordhiyo la doonaya kuwaas aad joojisay maahina kuwa kale oo ka badan inaad keentay ma rajeenaynayba oo airportada Boorama iyo Burco hay shaqeeyaan mashruuc maanta taan ka hadlayo oo ah labadii diyaaradood ee xayiraadda uu saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi fikir ahaantayda iyo sida aan u arko kulley maxay haydaani aniga ilama qurux badno madaxweynaha hal mid u man leh daamal labada diyaaradood xayiraadda ka qaad ama maxay haydaan diyaaradaha gebigoogaba inaga wada maalmahan wax ma garanaysaa hadal hayay inuu madaxweynuhu ka joojiyay diyaaradihii isku goosi jiray ma garanaysaa geeyiga Soomaalida marka waxaan leeyahay madaxweyne doorto waxaan ka midnahay un gobol ma garanaysaa magaalooyinka kale kala tagayaan diyaaraduhu uma inaguna ka midnoo waayo deeg wadan baynu nahay marka hadii matalan aad ka joojisay diyaaradihii isku gooshayay bariga Afrika oo dhan isku gooshayay hadda dalka Soomaaliland ka joojisay taanu mid kaliya ma kooran la kaliya kooran la waxa weeyaan maadaama aad joojisay ummadan Soomaaliland ku dhaqan kullee way u baahan yihiin waxay ma garanaysaa dalka kaga baxaan diyaarado gaar ah oo inoo soo sameeyaan kooran laayo oo ma garanaysaa Soomaaliland ma garanaysaa u shaqeeya gaarada magacaygu waa Cabdishakuur Cabdi Muuse waxaan nahay taksiilayaasha waxaan ka soo horjeednaa diyaaradaha Fly Dubai diyaaraduhu waxay ka mid hayeen bulshadu buu adeegayeen marka in laga soo horjeesto waxaan ugu baaqaynaa inuu iska cafiyo dadkaas oo iska siitay shaqada iska wataan waa Shucayb Maxamed kaan shacbiga telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya
haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa telesom